hagaag walaal soo daa su'aashaada. Magacayga waa Rifeek, waxaan ahay injineer barnaamijyadeed. Xaadarada horta aad ayay u wanaagsanayd. Quraanku wuxuu ku leeyahay sidaan akhrin doonaba ee suuratul baqara in Allah uu ku leeyahay Ciisa, ma dadka ayaad ku tiri Ciisow aniga iyo hooyaday i caabuda. Soo taasi macnaheedu maaha in Quraanku rumaysan yahay in Maryama iyo Ciisa ay yihiin qayb ka mid ah thaaluthka ama saddexaalayda. mana jiro Kirishtaan rumaysan arrintan. Walaalka su'aal ayuu na weydiiyey. Wuxuu sheegayaa in Quraanku leeyahay in Masiix Ciisa uusan dadka weligiiba barin inay caabudaan isaga iyo hooyadii sida laba ilaah oo kale. Mana jiro Kirishtaan rumaysan in Maryama ay tahay ilaah. Walaal, garashadaada Kirishtaanatiga aad ayay u xadidan tahay. Waxaa la helayaa kumanaan ka mid ah kooxaha Kirishtaanatiga. kumanaan xitaa aniga dhammaantood ma wada aqaano, laakiinse waxaa jira koox magaceeda la yiraahdo Maryamiyiin, kuwaasi oo rumaysan saddexaalayda iyo qaab ka mid ah thaaluthka oo ah Maryama. Waxay rumaysan yihiin in Maryama ay tahay ilaah. Aad ayay u yar yihiin, ma ogi inay weli joogaan mise baaba'een. laakiin haddaad akhriso kutubta Kirishtaanka waxaad ogaan doontaa inay jiraan koox rumaysan in Maryama ay tahay ilaah. Waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay. Aniga waxaan ahay Kirishtaan multazima oo Kirishtaanatigiisa ku dhagan. Intaan akhrinayay Bible-kana aniga u malaymaayo inaan ku arkay inaan akhriyay Ciise inuu leeyahay aniga hooyaday caabuda. Walaalku wuxuu sheegayaa inuu yahay Kirishtaannimadiisa ku dhagan. wuxuuna leeyahay intaan akhrinayay Bible-ka kuma aanan arkin in Ciise calayhi salaam uu yiri hooyaday caabuda. xitaa haddii uu yiri caabuda, adigu waad caabudaysaa oo kaliya weli. Quraanku ma dhihin. Bible-ku waxa uu leeyahay waxa Quraanku ka hadlayo waxa weeye inay jiraan kooxaha qaar oo arrintaas sameynaya. isla Bible-ka weligii laguma sheegin Ciise calayhi salaam inuu hadal toos ah ku yiri Bible-ka dhexdiisa. waa Bible-ka dhammaantii in uu ka yiri nafsad ahaantiisa i caabuda ama aniga ilaah. balse sidaas oo ay tahay Kirishtaanatigu haddana waa ay caabudayaan. adigu haddii aadan caabudaynin, alxamdulillah, arrintaasi waan kaaga tahniyadeynayaa. haddii aad ilaah ahaan u caabudaynin, alxamdulillah, taa macnaheedu waxa weeye inaad islaamka u dhowdahay. Masiix Ciise calayhi salaam wuxuu ku leeyahay Injiil Yoxana chapter-ka 16 11 ilaa 12 cadadka. waxaa ii sugnaaday umuur badan si aan idinkugu sheego, laakiinse hadda ma awoodaan inaad u dulqaadataan. markii kaasi yimaado waa ruuxdii xaqa. dhammaan xaqa ayuu idinku hanuuni doonaa. maxaa yeelay naftiisa kama hadli doono ee wuxuu ku hadli doonaa wixii loo sheegay loo wax. kaasi waa uu isharfi doonaa, wuu ammaani doonaa. wuxuu ka hadlayaa imaashaha nabigii nebiyada ugu dambeeyey, khaatimur rusul Muxamed sallallahu calayhi wasallam. sidaa darteed haddaad rumaysan tahay Bible-ka waxaa kugu waajibay in nabigii nebiyada ugu dambeeyey ee lagu sheegay Bible Muxamed sallallahu calayhi wasallam. waxaan rajaynayaa su'aashaada ka